Bismillaahi Raxmaani Raxiim. Waxaan rabaa inaan idinla wadaago website wasaaradda waxbarashada Jamhuuriyadda Dimuqraadiga Federaalka Itoobiya ay diyaarisay dugsiyada waddanka oo dhan. Marka website-kaas ciwaanka lagu galayo waa sip.moe.gov.et sida halka aad ka arkaysaan. Qofka internet hadduu haysto mobilkiisa iyo laptopkiisa mid walba wuu ka booqan karaa. Website-kan markaad hoos u degtaan waxaad arkaysaan xogo badan oo ku jiro, tusaale ahaan design school haddaa u baahan tahay inaad dhisto kale halkan baad ka arkaysaa. Waa design dhammaystiran oo dhinac walba school u baahan yahay leh. Marka waa kharash iyo waqti kale in lagu bixiyo design in la sameeyo looma baahno maadaama la diyaariyay xagga baad ka helaysaan. Haddaan qaybtan ka yara baxno xagga u koreysa haddaa fiirisaan schools meel ay ku qoran tahay jiro. Schoolska marka la galo iskuuladii waddanka oo tiradoodu 50 kor u dhaafaysa ku jirto. Iskuuladaas deegaankaad rabtaa dooran kartaa deegaanka Soomaalida. Inta iskuul ee deegaanka Soomaalida ku jirta waa kuu soo bixi. Waad sii filter gareyn kartaa oo gobolkaad rabtaa dooran kartaa faafan magaaladaad rabtaa ama degmadaad rabtaa ka sii dooran dugsiyadeeda kuu soo bixi. Dugsiyada sare waad ka sii dooran kartaa hadday dawli yihiin haddii kale oo private yihiin baad ka sii dooran kartaa. Dugsiyadan magaalada Jigjiga ee dugsiyada sare ah waa ku hadda inoo soo baxay. Waxaan ka dooranaynaa hal dugsi, dugsiga sare ee Jigjiga Secondary School oo aan fiirino waa dugsigii aan dugsiga sare ku dhigtay aniga fasalada sare. dad fiiriso saddex qaybood baan arkaynaa. Qaybta koowaad waa facility waa kaabayaashii horumarineed dugsigu lahaa. Dugsigan kaabayaashu leeyahay maxay tahay? Marka hadda biyo uu leeyahay laakiin biyo dheeri ah in u baahan yahay xaggan aad ka arkaysaan. Laba ku cad lacagta ay u baahan yihiin inay ku helaan biyahaasna xaggaa bay ku qoreen. Korontada inuu leeyahay inuu salahayn iyadana xaggaas baa laga arkayaa. biyihii 43 kaabe ee inta badan dugsiyada u baahdaan faahfaahintooda sidan baad u arki kartaan. Qaybta labaad ee dugsiga aad ka booqan karto waa qaybta gallery-ga markaad tagto sawirada dugsiga uu leeyahay baad arki. Waxaa ka mid ah kuwan haddii biyo loo baahan yahay haamaha u yaalo, electricity hadduu jiro oo meesha korontada ugu xidhan tahay. Shaybaadho kala duwan ee dugsigu leeyahay haddaad u baahan tahay iyadana xaggaa baad ka arkaysaa. Dhismayaasha wax lagu bartay iskuulka halkaa baad ka arkaysaa. Library-gii iyo laboratory-gii iyo ICT lab-kii iyagana xaggan baad ka arkaysaa. Garoon kubadeed hadduu dugsiga leeyahay xaggaa baa iyadana laga arkayaa. Marka waa qaybtii sawirada. Guddi dugsiga ka aasaasan oo guddiga horumarinta kaabayaasha dugsiyada la dhahaa baa jiro. Guddiga maamulaha dugsiga sare baa ka mid ah Maxamed Ibrahim Isaaq oo sanay ku magac dheer. Maamul ku-xigeenkii baa isagana xaggan ku aragtaan. Ururka waalidiinta isagana xaggan lagu arkaa. Xubno kale oo ardayda wakiilka baa iyadana jirto. Ardaydii xubin wakiilka baa jirto. Marka guddigan waa guddi toos aad ula soo xiriiri kartaan. Looma baahno qof walba oo dugsigiisa inuu wax tara rabo uu wax ka soo dhigan jiray ama ku jecel yahay inuu wax u qabto uu rabo. Looma baahno inuu meel soo maro wasaaradda waxbarashada federaalka ta deegaanka tii magaalada ama degmada qaabkaas oo jid dheer noqonaya looma baahno. Toos guddigan oo ah guddiga horumarinta dugsiyada baad ula xiriiraysaa. Haddii aad waddanka joogto account-kan baa iyadana wax loogu soo ridi karaa. Account-ka dugsiga waa ka dugsi walbana saas oo kale iyadana loo arki karaa. Marka website-kan waxaa loogu talagalay in aad xogaha dugsiyada aad kala socotaan abaabulkan uu qayb weyn ka qaato. Muddo 3 ilaa 5 sano ana waxaa la rajeynayaa dugsiyada waddankeena iyo dalkeena iyo deegaankeena dhammaan in isbedel fiican uu ku yimaado bulshaduna ay qayb ka noqon karto. Waxaan idin yara tusi qaybtan oo ah haddii mobile aad isticmaalaysaan muraayadiisu way ka yartahay isaga. Muraayada mobileka maadaama ay yartahay sidan oo kale isagana loo arkayaa. Qaybta iskuulkaan arkaynay halkaas 3 xariiqin marka lagu dhufto iskuuliska saasa loo dooranayaa way ka dhigan tahay. Marka la doorto kadib intii jidkii aan hadda marnay oo kale deegaankaad rabtaa dooran, gobolkaad rabtaa iyadana aad sii tegi kartaa way ka dhigan tahay. Marka xogtan inaan idinla wadaagaan rabaa. Marka waxaan rajeynayaa in dugsiyadeena aad
caawinaysaan dhafoor xumada iyo dhibaatooyinka badan ee tayada waxbarashada hoos u dhiganaya aad wax ka qaban doontaan hadduu ilaahay dhaho. fariinta marka idin soo gaadho waan ogahay dad badan oo idin ka mida waxay diyaar u yihiin dugsiyada inay caawiyaan jidkii loo mari lahaa ee abaabulka iyo hawshaas ololahaas socda ee loogu magac daray waxbarashada jiilka cusub jidkay u mari lahaayeen ay yara fahamsaneen. marka taas darteed baas videogan aan usoo duubnay website-kan la idin diyaariyey ka qayb qaadasho wanaagsan hadduu ilaahay dhaho. aad iyo aad baad umahadsantiin.